ku dhowaad 60 sano kadib muqdisho maanta waxa ay furtay bog cusub oo ka mid noqonaya sooyaalkeeda taariikheed gaar ahaan hannaanka dimuqraadiyadda oo ay horey uga tilmaaneed dhammaanba magaalooyinka kale ee Afrika maadaama magaaladani ay ahayd taariikhda magaaladii ugu horreysay ee qaaradda Afrika ee si nabad ah madaxweyne la doortay oo xilka ugala wareego madaxweynihii uu ka guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ay u helisay marwadiisa Qamar Cali Cumar ayaa maanta ka mid noqday boqolaalka kun ee reer Muqdisho ee maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka 16 ah ee gobolka Banaadir maanta maalin kale waaye oo aan sheegay taariikh Soomaaliyeed cusub taariikhda Soomaaliya ee soo jireenka ahayday muddadii dhaweyd oo dhan ayaan maxaan ku yiraahdaa aan u bedelnay dhinaca kale hal bog oo taariikhda kamida ayaan rognay waa gidinay bog cusub aan soo bixinay saaka wixii ka dambeeya boggaas cusub ee Soomaaliyada nabadda ah ee dimuqraadiga ah ee doorata hoggaankeeda wadadaasaan maanta lugta saaray ilaahay idinkiis meel fiican ayayna nagu dhamaynaysaa kasakow in dhacdadani tahay guul taariikheed u diiwaan gashay dadka Muqdisho oo hadda wixii ka dambeeyay ay u adeegi doonaan madax ay iyagu codkooda ku doorteen haddana dhan kale tallaabadani waa mid ka marakacaysa isbeddelka amni nololeed iyo horumar ay ku tallaabsatay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho 60 sano kadib maanta waxa ay dirtay fariin dhab ah oo ka turjumaysa xadaaradeeda soo jireenka ah iyo inay si dhammaystiran uga bogsatay daqaradii ka soo gaaray dagaaladii sokeeye iyo kuwa cadowga argagixisada ah ay waqtiga dheer ku dadaalayeen inay ku suurad xumeeyaan dunida horteeda mar kalena waxa guul qaran ah in dawladda Soomaaliyeed ay soo gaartay heer ay ku filnaatay qabashada doorashooyin heerkan ah oo in ka badan boqolaal kun oo dadweyne ah ay codkooda dhiibanayaan iyada oo si dhammaystiran dawladdu u dabooshay baahiyaha amni dhaqaale iyo farsamo ee loo baahan yahay